taalada taariikhiga ah ee Axmed Gurey oo ku taala isgooska number 4 isla markaana kala qaybisa degmooyinka Hodan Wadajir iyo Waaberi ayaa muddo 27 sano kadib waxaa taaladaasi dib u dayactiray maamulka gobolka Banaadir si loo soo nooleeyo ama dib loo soo celiyo goobaha taariikhiga ee caasimadda ku yaala waxaana xarig ka jiray taaladani dayactir kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabit Cabdi Maxamed taalada Axmed Gurey ayaa waxaa lagu wareejiyay dhisme aad u qurxoon iyo leerar xilligii habeenkii aad u soo saartay bilicda taaladani taasoo qayb ka ah horumarka iyo dib u soo kabashada caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho duqa magaalada Muqdisho iyo madaxdii kale waxay kormeer luga ku sameeyeen taalada Axmed Gurey oo ay ka muuqato bilic ay indhahaagu soo jiidanayaan isla markaana ka duwan wajigii markii hore ay lahayd taaladaasi intii uu dalka burbursanaa waxaana dayactirka iyo qurxinta taaladani ka shaqeeyay maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya ganacsada Soomaaliyeed ee reer Muqdisho gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Rooda Cabdullaahi Colaad ayaa ugu mahadcelisay maamulka gobolka Banaadir dib u soo nooleynta taaladani taalo aad iyo aad taariikhda Soomaaliya ugu magac dheer waxaan rajaynayaa dhammaan talooyinka dhan ee gobolka ku yaalo sidaan oo kale in loo furi doono waxaan aad ugu faraxsanahay taalada Axmed Gurey inay nasiib u yeesheen degmooyinka Hodan iyo Waaberi inay tahay meel central ah oo ku taalo maamulka gobolka Banaadirna aad u soo dhaweynaynaa arrintaas iyo dadaalkeeda gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Cali Fiido ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay cid kasta oo door ka qaadatay dayactirka taalada Axmed Gurey marka waxaan uga mahadcelinayaa inuu fursadan ka faa'iideysanaya dadkii ka qayb qaatay dhisidda taaladan oo ay ka mid yihiin qaybta waaxda farsamada dhismaha howlaha guud oo runtii juhdi badan geliyay iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo ayuuna qayb weyn ka qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabit Cabdi Maxamed waxa uu sheegay in maamulka gobolka uu xoog saaraya dib u soo nooleynta goobaha taariikhiga ee ku yaala caasimadda quruxda iyo sida wanaagsan ee loo qurxiyay taaladii Axmed Gurey oo runtii taariikhi ah sidoo kale waxay ahayd dhawaan markii taaladii SYL iyo taalada Dhagaxtuur oo gudoomiyaha nala joogtay Rooda oo runtii ku guuleysatay isbuucii xurriyadda ee Soomaaliya ee 26 Juun ilaa 1 Luulyo oo dib loo furay waxaana ballan qaadnay markaasna dib u sii wadeeno oo dadaal aan sii sameynayna lana furay taalooyinka taalada Axmed Gurey sida qof walba uu ka warhayo waa taalo taariikhi ah kaliya ma inay taariikhi tahay waa taalo istiraatiiji ah oo kulmisa dhowr degmo oo gobolka Banaadir ka mid ah sidoo kale haddana ku xirta wadada tagaysa airportka ee Aadan Cad International Airport saadirteed marka taaladan maadaama taariikhda istiraatiijiyada ay leedahay wax weyn ay runtii ka taraysaa nabadda iyo bilicda caasimadda sidoo kale waxaad ka wareysaan amniga magaalada Muqdisho inuu aad u soo fiicnaanay saacada hadda aan hadlayno waa 3 saac habeenimo ay ku dhowdahay oo aan taaganahay taalada Axmed Gurey oo aan dib u fureyno ilaahay mahadiis ka sokow waxa iska leh mahadaas hay'adaha amniga oo har iyo habeen noo soo jeeda oo har iyo habeen amniga u taagan iyo shacab weynaha Muqdishaawiyiinta ayagana garab taagan mar kastaba Nuur Saciid Taliil raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho